السلام عليكم ورحمة الله. كسو دوادا مقال عصب maanta muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay qaabkee uga hortagi karaa in janaalkayga aan la ganaaxin dhawaana iyadoo ay socdaan ganaaxyo iyo sharciyo cusub ay soo saaray YouTube taasoo ah dhawrista xuquuqda ciyaalka midaas oo janaalkayga ku kala cadeynaysa inuu yahay mid loogu talagalay ciyaalka iyo mid aan loogu talagelin haddaba sharciyadas haddaadan raacin YouTube waxay kugu ganaaxaysaa lacag ah $142,000 taasina mid macquul ama ahan inaad janaalkaaga ka bixisato dhow marka sidee uga badbaadi karaa uguna hortagi karaa inaad ku dhacdid haddaba ku soo dhawaada fiidiyoga kan ayanu sidaad uga hortagi karaysaa sidaad settingka YouTube-kaaga u sixlaadba uga hadlaynaa ku soo dhawaada muuqaalka waxaad soo furanaysaa ana browser ay kugu jira anigu hadda waxaan soo furanayaa Chrome markaan ku dhufano halkan ayuu keenayaa waxaan ku qoraynaa YouTube markaan waa kan ina keenay waxaan ku dhufanaa saddexda xiddigood saan uga dhigno desktop side haddaba waxaanu kasii dooranaynaa meesha ay ku qoran tahay loogadu ka muuqato baynu ku dhufanaynaa waxaanu kasii dooranaynaa YouTube Studio markaan kasii dooran halkan ayuu noo soo gudbiyey waxaanu kasii dooranaynaa meesha tan ay ku qoran tahay meesha settingka ayaan kasii dooranaynaa haddaba ayana waxaanu kasii dooranaa channel meesha ku qoran tahay advanced setting ayanu kasii dooranaa haddaba waxa ujeedaan inuu inoo soo gudbiyey meesha ahayd muhiimadeena meesha tan waa meesha aynu u soconay iyadaana la ka rabaa inaan ka saxno si aynu uga badbaadno ganaaxaas haddaba waxa weeye haddii aad tahay qof aan soo gelin janaalkiisa waxyaalo quseeya ciyaalka waxaad dooranaysaa no ayaad oranaysaa haddii aad tahay qof soo geliyana waxaad ka dooranaysaa yes ayaad dooranaysaa haddaba haddaad rabtid haddii kale haddii ay dhexdhexaad ku yihiin fiidiyowga ayaad ka sixi kardhaa siyaabo looga saxana ayana fiidiyow kale ayanu ku sameyn haddii la haydmo casharkeena maanta intaas ku egyahay waxaan ka codsanaa share garsan asxaabtana sii gaarsaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah.